marka wuxuu dhahay gabar aan isla soconay 2 sano iyo bar 2 sano bar xiriir lahayn 2 sano bar xiriir raadaan muxumo 2 usbuuc ka hor ayaan ogaaday inay tahay in adeertay wiil waxaan ka jeclaaday social media gaar ahaan facebooka wiilkaas aqoon isku ma leeyin kor baa ka aqaanaa okay ima oga anu xalo sameeyaa igla talinaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ummadda Soomaaliyeed salaan sare meel bay joogtiin waxaan idinku salaamayaa salaan aad iyo aad qaali u ah mar kale waa UA is back again UA is back again this time UA fitness podcast waa gooni UA fitness competition waa gooni maanta waxaan idin wadaa barnaamij cusub UA Helpline waxaa loogu sameeyay in si aan ugu soo dirtaan dilemmas ama situationka ama xaaladaha qof walba ku sugan yahay ama markaas uu talo u rabo ama in laga talo celiyo uu rabo ama in talo laga siiyo uu rabo barnaamijka maanta waa qaybtiisa u horeysay UA oo kaliya idin jooga laakiin next week insha Allah waxaan isku dayeynaa qof inaan ku soo daro oo co-host ah oo dhanka dumarka maadaama aan ragga matali doono dhanka dumarka qof matali next week insha Allah waa ku soo dari doonaa marka saa ugu gudubna barnaamijkan aan idin fahansiiyay barnaamijkan waxa ku soo diri kartiin any dilemma situation aad ku sugan tahay xaalad walba oo kugu adag ama ka dheystala ugu baahan tahay waa noo soo gudbi kartaa WhatsApp number marka si aan ugu guda galna barnaamijka first dilemma waxa waaye dilemma wax walba sabab loo bilaabo sababta barnaamijkan loo bilaabana waa dilemma badan oo ay ila soo wadaageen qaar dad asxaabteeda ah iyo dad kale aan garanayn laakiin rabaan in barnaamij saas camal ah so dilemma u horeyso waa is from qurbaha waaye is from London Mohammed Yare is 21 years old from London wuxuu dhahay say wallahi waa wiilkaan fahant laati iko jir leh waay marka wuxuu dhahay gabar aan isla soconay 2 sano bar xiriir lahayn 2 sano bar xiriir raadaan muxumo 2 usbuuc ka hor ayaan ogaaday inay tahay in adeertay dilemada meesha hanoo joogto wax yar oo inaad dhex geliyo dilemada aad jirto marka say wallahi when it comes to marriage iyo relationship iyo dadka xiriir la yeelanayaan kaasanka in adeerta iska dhaafay in adeerta labaad xataa walaashiisa u la mid tahay ma fahant so in adeer iyo kaasan iyo walaashiis la mid walaashiis ama guursana no walaashiisa la mid tahay marka ma ka kaftamaan say wallahi when it comes to having relationship with in adeerta in adeerkeeda iyo samway iyo maxas ma jiraan ma fahant so marka wiilka daalamis asiibada wuxuu dhahay 2 usbuuc ka hor ogaaday in adeertay inay tahay xiriirka marka ogaado in adeertay noqoto xiriirka ina hore ka dhameey ma rabin inaan ku degdeg ma rabin laakiin talaan u baahana seen wax yeela ma fududo wallahi arin adag waay horta diiniyan hadii la dhaho wax diiday male cause in adeer waa la guursadaa waa la isguursi jiray haddana is guursanayaan weligood is soo guursan waan is guursi doonaa ma fahanta taas waa wax laga bedeli karo male laakiin xiriirka inuu u jaro uu diyaar u yahay cause wuxuu taagan yahay haddaa guursado in adeertay anoo walaashay guursay la mid tahay asi ahaan maskaxiyan ahaana waxaas loogu dhaadhiciyay sharciyan waa sax laakiin dadkan say wallahi sidoodaba waa I don't know low comment saaxib wallahi taas is hard way adag tahay aad iyo aad u adag tahay marka wallahi no comment taas waa iska guursaa ku dhihi lahay kuley in adeertay haddii quruxley ay tahay ay shidan tahay aniba nin kale ma fasaxlaan saaxib anaa dabi lahay ma fahanti iska guursa marka in adeer qurbaa kasoo guur muqdisho ma waxa marku guurso dhandaase kaasan iyo waxaas iyo daaqad ka bixi xaaskaaga waa ma fahanti so ana waxaa ku dhihi lahay ahaanteyda guurso cause ani haddii kaasanteeda jeclaado oo gadaal dambe ka ogaado hey jaceylkayga wax walba iga muhiimsan ma fahanti so that's it way dhamaatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجيواي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي welcome to the show brother so do وكده هاي برو هذا أمة سنتهاي جماعة وناكسن
jimco wanaagsan, jimco lamida, jimco mubaarak. aad iyo aad Adiga iyo dhammaan asxaabta intana daawanaysa aad ugu salaamaya. aad iyo aad waa Marka mahadsantahay sharaf ay tahay maanta inaan mataqaanaa iga aqbasho in yani tala adiga mataqaanaa kula wadaago. waa waxa barnaamijka loo sameeyey waa talan celinta barbaarta Soomaaliyeed. Aad iyo aad. So let's go. maxaa marka barnaamijka muxuu yahay, maxaa laga tala siinaa? niyo barnaamijku wuxuu yahay gabadha yani hadda yani xiriir naga dhexeeya. sax gabadhaasna yani waxay tahay gabar kow iyada yani jacaylkiisoo bandhigatay oo iyada wax walba dhankeeda ay ka yimaadeen. dan ani gabadhaas markii kow ay yani iyada jacaylka iisoo bandhiganaysana ani yani wax damac ama wax dareen ah ama wax jecel igama jirin. sax dan markii adiga wiigyaal badan ama iska dheh bil camal markii gabadha ay wada joogno kalay gabadhii jeclaad gadaalaa ka jeclaad jacaylka labada qof luu ku hormaraa. aad iyo aad. marka gabadha waa gabadha dirisna haddana habeen maalin la is arka maydhe dirisaana habeenii maalin maxaa waay bay diriskaaga teeda kalena haddana diris haddana ma ahan oo kala dheer. gurigeena guriga kasoo horjeeda albaabka hadaa soo fur way ii jeedaa, haddii albaabka iyada soo furtana u jeedaa. jacayl kuleel waay wallaahi kaas haye. marka niyo gabadha iyada yani gabdhaha la dhasheen oo kale guriga imaanee mataqaanaa gabdhaha la dhashay gabdhaha ma loo imaanooye adaa lagu imaanaya ma fahmaysaa marka kow yani mataqaanaa gabdhaha looma imaan jirin Aye. oo loola hadli jirin. Sax. markii ani lii jeclaa yani in guri lasoo galgalo gabdhaha loola hadlo hooyo laiska gadgada ala bilaabo macnaha. come on hey CV-ga la iska dhisoyaa waalidka haddii ay ka helaan walaalaha ka helaan adi marka adina waa ka helay waay macnaheedu. aniyo gabadha ani markii yani sheekadaas ay sameynaysay ani yani ka helitaan ama jecel ama dareen iyaga ma jirin. waxaa islaahay xataa qofkan kugu dhegdhegayo yani ku dareensiinayo inay ku jeceshahay muxuu ahay. teeda kale ani weligii waxaa rajeynaya in aan qof jeclaado aan jeclaan kow ani jecelka inaan qof kugu hormaro. aad iyo aad. so adi weligaa waxaa rabta inaad adiga gabadha jeclaatid laakiin waxaa aragtay gabadh adig ku jecel. gabar ani jecel arkay oo yani gurigii u imaanayso. xitaa gabdhaha la dhasheen oo kale markii qadada la ii keenayo ama subaxi quraacda la ii keenayo heer waxay maray iyada ay soo qaado qolka ay igu keento ee gargaraacdo. shaqadeeda sii qabsanaysaa dhib ma lahan. shaqadeeda sii qabsanaysaa. shaqadeeda qabsanaysaa waa yani mataqaanaa marka qofkan sii kasba waa marka maxaa lagaa inta lagaa siiya arrintaas horta marka see wax yimee intee wax ka adkaadeen marka fancy niyo gabadhii marka dibaa ka jeclaaday gabadhiina mataqaanaa maxaasaan igu galeen leedahay hadda yani iyada hadda ani markaa jeclaadaa waxaa ka dareemaya inay xariga ii gaabinayso aada dareemaya macnaha jacaylka marba qofuu dhankiis ku zaa'idaa saaxiib. marka dhankaaga hadduu ku zaa'iday laakiin asalka hore gabadha anaa ka cararayo ka dhadhuumanaya saaxiib. heer waxay gaara xataa xaafadda usoo hooyo waa iyo darteeda gas u siiyey macnaha. okay fagaartaa ka ahayd. haddana anaa gabadha jecelniyo maxaa tala igu darsan leed. wallaahi horta jaceyl haddii la horto jaceyl alxamdulilah jaceyl ilaahay waa isiiye waana haystaa jaceyl horta jaceyl la-aantiis abaar waay ma fahanta. aad iyo aad. jaceyl mar haddii la dhahana ma jidaa qofku jecel a wax lagu darsadaa weligaa hal talaa ku siinaa. qofaa jeceshahay oo ku jecleen adina halaa jecesha kuu jecleen ha jeclaanin hana qof haddaad jeceshahay oodi sukuya aa u ahayn qofkaas saa dib uga guura lahayd ku dadaal laakiin weligaaba qofku jecel aa la jeclaadaa. qofka hadduu ku jecel yahay waa kaasa qof aad jeceshahay mar walbo adilee lagaa rabaa adilee wax jecel laakiin jecel hal mar ma ahan labada dhinac waay. qofkan shalay idaa ku jecleed maaho haddana adag gadaalaa ka jeclaatay. waxa jecelka lagu sheegay wuxuu yahay labada dhinac adi shalay bay ku jecleed welina way ku jeceshahay laakiin maadaama adi jecelka uu kugu zaa'iday leekastoo kuleel kuu kicin way ma fahanta. mar gabadhaas way ku jeceshahay waxay kuu sameynaysane waa kolleyba waa dareenta adi way kaa keensatay jecelka. marka saaxib waxaa ku dhihi lahaa qofku jeclaa la jeclaadaa. marka tartiib xabadaha hoos u dhig waa isdeji jaceyl way ku jeceshahay adina waa jeceshahay marka labadiinaba jaceylkiin waxaa idin rajeynaa inuu hirgalo insha allah.
jaceylkii miro dhal inuu ilaahay ka dhigo marka good luck saaxiib marka baarnooyada iska daa marka tartiib insha Allah aad ma santa no problem la wadaaga raadinayay marka brother maadaama mataqaanaa wax badan iga caabisay aad ma santa welcome anytime saaxiib welcome kaasina wuxuu ahaa the first call oo soo wacay showga wuxuuna talo uga baahnay nolosha marka kuleybo xoog xamaali iyo maskax haddii la isbarbar dhigo maskax ma dhammaato xamaali xoog haddii la dhaho xamaali xataa ma haddaa xoog ba ku shaqaysanayso oo physical shaqadaada physical ee tahay mar haddaa 50 gaartid waa kuu dhammaatay haddaa adkeysatay xataa saax u qaba jird because 20 jir iyo 50 jir isku si wax muu qabanayo run aas ku sheegno mafahant soo 20 jir soo wax u qabanayo xooggiisa uu ka fiican yahay qofka 50 marka laakiin maskax haddii la dhaho 20 jir mar walba waxaa ka maskax fiican qofta 50 jiro haatanna waxaan u gudbeynaa qofka labaad ee barnaamijka insha allah marka mar walba maskax over muruq maskaxdaada inaad ku shaqaysid mar walba ka fiican muruqaaga inaad ku shaqaysid soo aad iyo aad u mahadsan yahay walaal waa qalinka kor u qaad qalinka dib u qaad mar kalaan dhihi lahay walaalkaas insha allah good luck and never give up asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga iyo magaalada naga soo waceysid magacayga waxaa la dhahaa bushro waxaana joogaa magaalada garoowe aad iyo aad garoowe jimco wanaagsan reer garoowe waxaan rajeynaa in lagu fiican yahay insha allah jimco wanaagsan dhammaan reer garoowe iyo inta soomaaliyeed se lagu caawiyaa marka situationka iyo xaaladda maxaa waase walaal waxay iga caawisaan wiilba waxaan ka jeclaaday social mediaha gaar ahaan facebooka aad iyo aad wiilkaas aqoon iskuma lihin kor baa ka aqaanaa okay marka walaal isaguna ima ogaa anu xaloo sameeyaa igula talinaysaan weli ma u sheegan miya may umaan sheegan waan ka baqayaa maxaa yeelay gabar baan hayna sheegto wiilkees waa dareemi karaa gabdhaha waa xishoonayaan laakiin midaa ku weydina qofaa is aragtiin miya ma isla joogtiin mise waa qof oo social media oo keliya social media idol iska yaqaana handar laisla sii joogi karaa may isma arkin aqoon isku milin social media baan ku arkay okay waana marka ma jeceshaa mise waa rabtaa oo keliya jecel iyo rabaasha labay keliyihiin waa jeclahay saa u sheegataa garalaada marka ha aad iyo aad wallaahi koleyba haddiiba wax aad jeceshahay waa wax kaa go-san oo qasabku waa inaa heshid marka raggana wallaahi koleyba waxyaabihii yaraa jiro loo sameeya ragga lagu soo jiito social mediana hadda wicitaan cod oo keliya maana haddaa qof maanta isla joogi laheedeen ama qof isla dhow dad meel isla joog ahaa laheedeen waxaan ku dhihi lahay waa maybe saas yaal si oo qofka markaa la joogtid si fududa lagu soo jiidi karaa laakiin social media waa cod oo keliya iyo video marka way adagtaa social media sida waxaad kuu sheegay laakiin hal midaa kuu sheegaa laba mid weligaa intaa beri shalay lahayd aad dhihi lahayd haddaa u sheega lahay haddaa u sheega laba mid ay noqonaya either yes or no ka badan ma ku dhahaya haa ama mayo ku dhaha oo keliya mafahant marka waxaa ku dhihi lahay daahana hortiisna waxaa jooga dafane laga yaaba intaa hadda isdhehaysid u sheeg gabar kale inay kaa hormarto mafahant marka haddaahin u sheego laba midaa kuu soo baxays adi haddii hadda lacala dad horta waxaa jiro intay u sheegi lahaayeen waxay ka fikirayaan maya ama ku dhahaa maya adi ma ogin lagu dhahay ma og inay dhahay labadaba haa badanaa horta raggaaba may la dhahaa anagaaba may u badan laakiin adoo gabar ahaan jeceyl aa soo bandhigatee maasha allah saa qiyaasaa gabar oo ilaahay qurux siina waa tahay marka haddaa adi soo bandhigato marka inuu kaa aqbalaya rajeynaa marka waxaan ku dhihi lahaa good luck haddaahin dafanaa jooga haddaa dahdid marka u sheego may ka badanu ku dhaha dee u bada duu may ku dhahane come on ka gudub bcause waxaa joogo rag kaloo badanaa joogo keligiis rag ma aha marka sida dhaqsiyaha badan ugu sheego insha allah waana mahadsan tahay jazaakallah waa mahadsantahay wicitaankiina aad iyo aad taasi waxay ahayd bushra from garoowe jimco wanaagsan reer garoowe wallaahi mow
maxaa ka qabtaa taladaas wallaahi bushra waxaan ku dhihi lahay daahana hortiis dafana joogo wiilkaas yaa lagaa dafay haddaa jecesha aa rabtid u sheego wuxuu ugu badan uu kaliya ku dhihi karo waa may mayna maku dilayso so waa ka gudbe labada maalina niidkaa jabnaane isbuuc maybe month ba laakiin waa ka gudbe waxaa ku dilin stronger kaa dhigaan what doesn't kill you make you stronger so let's go u sheega ku dhihi lahay hello okay bro thank you kaasina walaalkay ahay marka walaalkii ugu dambeeyey ee showga u ahay kaasina wuxuu ahay walaalkii ugu dambeeyey ee showga su-aashiisa da dib ugu laabto weligaaba ma jeedaa qof markuu ku jecel yahay adine gadaalaa ka jeclaanaya haddaadan maanta jeclaanin beri jeclaanin qofkaas jeceelka maalin walba wuxuu kuu sameynaa qofku jecel wax fiicana kuu sameynaa ama tala ha ahaato tala fiicana ku siinaa ama noloshteeda ha ahaato wax walbo bestio ku siinaa qofka qof maanta dhan best kuusoo bandhigayna soon or late waa jeclaanaya ma fahanti so qofku jecel aa la jeclaadaa walaal qofkaas ku jecel adina hadda waa jeclaata meesha laga rabo waayaba labadiina hadda waa isjeceshihiin so waxaan ilaa jeceelkiina mid hirgal ilaahay ka dhiga gacmaha ka qabta waa kaasaa insha allah the first episode of UA maanta backgroundka waa ujeedin there's no background the first episode as an emergency ahaana loo duubay UA Hopeline first episode done so wicitaankaas soo wacdeen barnaamijka aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa noo soo diri kartiin Hopelineka UA waa 616555525 616555525 616555525 sidaa ka arki kartiin hoosaa lagu soo qoraa insha allah way ku qorantaa hoosta uga jeediin waa 616555525 next time assalaamu calaykum waraxmatullah haddaa u gudubno daalaamada labaad waa wiil yaroo dhalinyare halo haddana qofaa kolka soo galay asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo meesha naga soo wicisid magacaygu waxaa waaye axmed cabdullaahi jooxo oo idinka soo wacay degmada dharkeenley khaasatan waxda xanaano bulsho xanaano bulsho insha allah waxaa u rajeynaynaa waxdaas iyo dharkeenley ahaan iyo dhammaan soomaaliya dadka maalin wanaagsan aye situationka iyo daalamada nala walaagi rabtid nala wadaag marka nin iska shaqaysta ahay oo waxaa waaye oo self employee iyo kowdhe okay self employed oo adile boss isku sax xaas iyo waxaan u halgamana waa jiraan fahmino oo junior yar iyo ilmo yar iyo xaaska sax haye marka culeyskana waa waxaa waaye waa iska bataa qof walbaba in dhibtaa hoostaado sax gaadiidaan ku shaqaystaa waxaa nin bire ma fahmino sax birtina waa iga haleegsanto waxay igu jirtaa kii geeris sax marka beledkina waa xun yahe haa maxaa xalle bal islaamku waxaan ka dalba lahay bal waxay ugu caawi karaan bal wallaahi waa tala waa kusii karnaa waa kula tali karnaa wax walbo maanta ujeed adduunkan wax walba meelay ka bilaawdaan bilaawi dhammaaday leeyihiin wax ma soo barato wax hore ma soo barato waxbarasho ma soo marto aada u weyn okay ilaa dugsi sare okay ilaa dugsi sare maxamed dugsi sare waa wax maanta oo lagu qaraabo karo ma fahanta oo lagu shaqaysan karo marka ma isku dayda dhankaas birta inaad ka baxdido dhankaas aad geshid consequence ay diiday waa jidgooyo ay hor istaagtay maxaa yeelay waxaa liiga rabay waxaa waaye nin lagu seexda waa seexan waa nolosha adduunyada waa qutulyoonka maanta la cunin lahaa lagaa rabaa wax dhicis haddana iga hor istaagtay waxbarasho lagama daalo lagama duqo ee duruufa baartaa maa jiro waa ogaa laakiinse laf dhagax oo dhuuxle laba dhagax waa lisla waay marka okay dhanka waxbarashada daruuf lacag aamaa kuu diidaysa waqtigii maa kuu diiday maxaa kuu diidaysa marka waxbarashadii oo ilaa dugsi sare oo aa kusoo oo maxaa la dhahayay soo baray duruuf mas-uuliyad aniga aan xambaarsana oo dadnimo ay diidaysa lacag la-aan okay
maxaa yeelay aneen ximbaar dadka la masiix ximbaari karin okay dadkan mashiinka ximbaarsan oo wada adiga waay sax si fiican haddii maanta mashiinka motoorka ku dhaqaaqayo oo halaabo mashiinka wax dhaqaaqayo mal meesha la fadhiisanaa sax si fiican soo xoog haddii la dhaho xoog ilaa dhowr sano 20 sano ama 30 sano ha noqoto waa ku shaqaysan kartaa 40 balaas waa ku shaqaysan kartaa 40 balaas da 40 balaas da mar gaartid ama 50 ta iska dhadaa mar gaartid qasab waaye xoog ma ku shaqaysan karayso xoogaaga hoos u soo dhaca marka xirfadna wax dhamaada maahan saaxiib ma fahanta qabriga lagaa geey karaa ma ahane as long adoo sariir jiifa xataa maskaxdaada dad waa ugu faa'iidey kartaa ma fahanta marka saaxiib waxaa kugu waanin lahay waxbarashada inaad dib u soo nooleysid birta iyo maxaa la dhahayaa ku shaqaysanaysid ku shaqo muxumo laakiin qalinkana kor usoo qaad waxbarasho bilaaw taas inaa fahdi waxbarashada waa ogahay wax hadda la bilaabayo hore miraheeda ma laga faa'iidayo laakiin waqtigay qaadanay sanad iyo 2 sano qorshe deg qorshe oo 5 sano deg ma laga duqo waa qorshe 5 sano deg 2 sano 3 sano waa ku mahadsantiin kala celintiin aad iyo aad waa mahadsantahay